kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal arooryo suban waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan haddii Allah awood leh uu raalli ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya SSC qaatumo oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbatay in ciidamo military ah ay geyso gobolka Sool oo qayb ka noqdo dagaalka ka dhanka ah Somaliland wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo xalay kulamo xasaasi ah oo aan loo kala kicin kula yeeshay hoggaanka dhaqanka gobolka Sanaag iyo sidoo kale dalab culus oo la hordhigay ra'iisul wasaaraha oo ku aadan in ciidamo uu geeyo gobolka Sool ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii Allah awood leh uu raalli ka noqdo waxa qayb ka noqonaya Somaliland oo ku gacan sayrtay in ay sii deyso maxaabiista magaalada Hargeysa uga xiran beesha dhulbahante maxay tahay sababta xilligan Somaliland ay u diiday xilli la sii deynayo maxaabiistii uga xarneed magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Jubbaland oo abaabul dagaal ka bilowday deegaanada gobolka Gado iyo Axmed Madoobe oo amar culus siiyay ciidamadiisa xilli xiisad ay ka taagan tahay gobolka Gado wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada soconaya xalay ilaa iyo saaka ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal haddii Rabbi uu wadmo qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya xog culus oo laga helay duqeymo iyo dagaalo toos ah oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Aboorey oo wali kooxaha shabaab iyo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaankaba ay isku dagaalayaan gantaalo ayaa lala beegsaday fariisimo kooxda ay ku lahaayeen deegaano hoos yimaada Aboorey iyo sidoo kale meelo ay ku dhumaalaysanayeen sida xogta aanu ku helayno waan idin soo gudbin doonaa faahfaahinta wararkan qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Puntland oo wajigii saddexaad ee ciribtirka kooxda Daacish ka daahfurtay deegaano ka tirsan gobolka Bari wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada culus ee hadda ka bilowday gobolkaasi ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada iyo qodobo kale iyadoo wararkeena ku daawan doontaan haddii aad channelkan ku cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tiraahdo sidoo kalena gambaleelka aad furato si aad u heshid macluumaadka dheeriga ah ee aan xilli walba halkan idin kula wadaagayno like dhe muuqaalkan siina share garay adiga ayaa ka dhiman geedigeena 40,000 ee aan ku doonayno in aan halka ku gaarno waa hagaag saaxiibayaal soo dhawaada qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa hoggaanka SSC qaatumo ayaa ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya in ciidamo military ah ay ku soo biiriyaan ciidanka SSC qaatumo ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Sool maadaama dawladda federaalka Soomaaliya maamulka SSC uu yahay xilligan wixii ka dambeeya maamul hoos imaanaya qaybna ka noqonaya maamulada ka jira dalka ee shanta ah lixna ku noqonaya hogaamiyaal ka tirsan SSC qaatumo oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale garaadada ay ka go'do talada maamulka SSC qaatumo ee beesha dhulbahante ayaa kulamo aan loo kala kicin waxa ay xalay la yeesheen oo saxaafadu dibad joog ay ka ahayd ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay hordhigeen dalab culus oo ku aadan in ciidamo military ah la geeyo deegaano ka tirsan gobolka Sool iyo gobolka Sanaag halka oo Somaliland xilligan dagaalo culus ay ka abaabulayso ciidankeeda militariga ahna ay joogaan dhibaato xoogan ay ku hayaan dadka SSC qaatumo ee halkaasi ku dhaqan gobolada SSC qaatumo ay maamuli doonto waa gobolka Sool gobolka Cayn iyo sidoo kale gobolka Sanaag halka oo si rasmi ah ay doonayso in ay uga taliso SSC qaatumo ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la aqbalo codsiga hoggaanka SSC qaatumo kuwa dhaqanka iyo siyaasiyiinta maamulkaasi waxa ayna markaa cadaadis ku saareen hoggaanka dhaqanka in SSC qaatumo shuruudaas ay ku xirayso ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isna ku xiray shuruud ku aadaneed in uu sii daayo qayb kamid ah maxaabiista ku jira magaalada Laascaanood xabsiyada ku yaala taa ugu dambeyntii 25 kamid ah ay aqbaleen hoggaanka SSC qaatumo hadda xaaladdu waxay u muuqanaysaa in dawladda federaalka Soomaaliya uu korayo cadaadis ku aadan in markaasi ay geyso gobolka Sool iyo sidoo kale gobolka Sanaag ciidamo military ah laakiin ilaa hadda qaabka loo geynayo laba shaacin laakiin ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sida xogta aan ku helayno waxa uu ku qanciyay dadka markaasi kulanka uu la yeeshay ee malafka siyaasadeed ee deegaanada maamulka
SSC qaatuma ay ka go'do waxa uu ku qanciyay in wax allaala wixii ay uga baahdaan la siin doono SSC qaatuma dawladda federaalka Soomaaliya ay siin doonto waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay geyn doonaan deegaanadaasi sidoo kale in SSC qaatuma laga soo dejin doono ciidamo dawladda federaalka Soomaaliya ay maamulayso sidoo kale waxa qayb ka ah ciidamada u ballan qaaday ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in ciidamo boolis ah oo ku dhafan kuwa SSC qaatuma oo ka tirsan kuwa federaalka in la geeyo magaalada Laascaanood gudaheeda sidoo kale ciidamo military ah la geyn doono hogaanka iyo markaa ra'iisul wasaaraha oo kulamadooda aad ay u dheeraarayeen xalayna ahayd kulamo aan loo kala kicin oo ra'iisul wasaaraha la yeeshay ayaa waxa markii dambe ay ku soo idlaadeen is afgarad ku aadan in ra'iisul wasaaraha markii magaalada Muqdisho uu ku soo laabto dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo asaga ay iska arki doonaan in markaa ciidamo la geeyo halkaasi laakiin kuwa booliska ah ayaa waajib laga dhigay oo ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in kuwa boolis ah ay ka howlgeli doonaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo markaasi amar buuxa la siiyay taliya Asad Diyaano oo qayb ka ah wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana laga dalbaday in degdeg magaalada Laascaanood uu keeno xubno ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka howlgeli doona deegaanada SSC qaatumo sidoo kalena qayb ka noqon doono ciidanka federaalka sidoo kale waxa la sheegay in qayb kamid ah ciidamada SSC qaatuma ee booliska ah la qaramayn doono iyagana qayb ka noqon doona ciidanka booliska Soomaaliyeed lambaro la siin doono sidoo uu sheegay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre sida aanu ku helnay xogta iyo sidoo kale macluumaadka kulamadii saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu la qaatay qaar kamid ah dadka ku dhaqan SSC qaatumo iyo sidoo kale hogaanka ugu horeeyo Cabdulqaadir Firdhiye iyo ismada dhaqanka oo talada ay ka go'do maamulkaasi waa hagaag wararkeena ayaad wali daawanaysaan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan waqti wacan ayaan idin leenahay Somaliland ayaa ku gacan sayrtay dalab ay u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ku aadanaa mar hadii maxaabiistii SSC qaatuma uga xirnayd loo sii deynayo in iyaguna maxaabiistaasi ay sii daayaan laakiin Somaliland waa ay ku gacan sayrtay arrintan waxayna sheegtay in aysan sii deyn doonin maxaabiista beesha markaasi dhulbahante ay ka haysato ee ku xiran magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland jeelasha ku yaala lama oga sababta keentay in markaasi Somaliland ay diido in maxaabiistaasi ay sii deyso maadaama isdhaafsi dhinaca maxaabiista ah xilligan uu ka jiro deegaanada maamulka SSC qaatuma iyo sidoo kale Somaliland horay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu u tagay halkaasi in markaasi dhaxdhaxaadin uu ka sameeyo dagaalka u dhaxeeya Somaliland iyo SSC qaatumo sidoo kalena maxaabiista la isweydaarsan doono laakiin Somaliland ayaa u muuqanaysa xilligan in beecaasi ay ka baxayso iyadoo markaasi cafis loo fidiyay qaar kamid ah maxaabiistii ku xirnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ra'iisul wasaaruhu uu amray in markaasi la sii daayo taasi bedelkeeda waxa la soo sheegayaa in waa ciidamada markaasi Somaliland iyo ciidamo kale oo la isku dhafay oo beesha habar jacle ka tirsan in ay duulaan ku soo yihiin dhinaca iyo gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo abaabul culus laga bilaabay togdheer iyo gobolka Sanaag oo kamid ah gobolada markaasi maamulka SSC qaatuma ay ku sugan yihiin waa maamulka Somaliland ay ku sugan yihiin ciidamadooda xogaha iyo wararka iyo macluumaadka soo kordhiyay waxa ay sheegayaan in ilaa iyo iminka Somaliland ay ka soo jawaabin dalabkii ay u dirtay dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ee ku aadanaa in ciidamadaasi gabi ahaanba la sii daayo laakiin Somaliland wali waa ay ka biyo diidan tahay arrintaasi xaalkuna sida uu noqon doono lama oga Somaliland ayaa wali ka caraysan in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu yimaado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay u arkaan madaxda maamulka Somaliland in uu yahay ama SSC in ay yihiin gobol iyaga ka tirsan gobolka Sool gobol iyaga ka tirsan ay ilaa iminka aaminsan yihiin in SSC qaatuma ay yihiin macnaha Somaliland marka loo eego waa hagaag wararkan iyo wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal markana Jubbaland ayaa waxa ay bilowday abaabul culus oo ka dhan ah ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Gedo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa amar ku bixiyay in weerar culus lagu qaado ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalooyin ka tirsan gobolka Gedo oo ay qayb ka tahay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo maalmihii ugu dambeeyay xiisad culus ayaa taagnayd taasi oo u dhaxaysay
ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee halkaasi ku sugan ayaa ciidanka maamulka Jubbaland waxa ay ku amreen sida warbixinadeena horeba aad ku dhageysateen ama aad ku daawateen in markaasi ciidamada Jubbaland ay iskaga baxaan deegaanada gobolka Gado laakiin Axmed Madoobe ayaa sheegay in cawaaqib xumo dowladda federaalka Soomaaliya ay kala kulmi doonto daandaansiga ku aadan arrinta la xiriirta gobolka Gado xiisada ayaa ka taagan saaka gobolka Gado qaybo kamid ah waxaana la soo sheegayaa inay isku horfadhiyaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Jubbaland horay ayay ahayd markii ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya magaalada Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo ugu dambeyntii ciidankii dowladda federaalka Soomaaliya markaasi ay iskaga soo baxeen maadaama ay xilligaasi ku qasbanaayeen in ciidamadu ay iskaga soo baxaan oo aan wax dagaal ah halkaasi aysan ka dhicin markaasi lana ogolaan waayay in markaa laba ciidan oo Soomaali ah ama markaa ka soo jeedo dowladda iyo sidoo kale maamul hoos imaanaya dowladda in markaasi ay ku dagaalamaan gobolka Jubbada Hoose laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa ku daabushay gobolka Gado inkastoo ciidamada qaarkood dib loo soo celiyo oo hadda ay ka howlgalayaan gobolada Shabeellooyinka laakiin ciidamadii ku haray gobolkaasi ayaa markan waxa ay taagan yihiin qaati waxaana maamulka Jubbaland ay amar ku bixiyeen in degdeg ciidamadaasi ay iskaga baxaan Axmed Madoobe ayaa la sheegay in amar culus uu dul dhigay ciidamada maamulka Jubbaland ee halkaasi ku sugan isagoo sheegay in loo baahan yahay in xilligan weerar ay qaadaan ciidamada saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugan gobolka Gado ayaa lagu amray in ay weerar ku qaadaan fariisimaha ciidanka militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka Gado iyo markaa deegaanada ay kaga sugan yihiin ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya laakiin waxa socda guluf colaadeed oo ka taagan qaybo kamid ah gobolka Gado oo xilligan u baahan in markaasi wax laga qabto lama oga xaalka sida uu noqon doono laakiin xiisad culus ayaa lagu soo waramayaa inay taagan tahay oo marba marka ka dambeeysa cirka isku sii shareeraysa qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan isla soo gaarnay markana xog culus ayaa ka imaanaysa halka loo yaqaan Aboorey oo ka tirsan gobolka Hiiraan gobolka Hiiraan saacadii la soo dhaafay dagaalo culus ayaa ka dhacay gaar ahaan Aboorey warkan waxa la tilmaamayaa ama wararku waxa ay tilmaamayaan in xalay duqeymo lixaad leh lala beegsaday goobo duleedka ka ah magaalada Aboorey halka oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan kooxda shabaab waxaana la aaminsan yahay in xubnahaasi qaybo kamid ah lagu dilay duqeymahaasi wali waxa socdo howlgallo culus oo ciidamadu ay ku barataarayaan sugidda amniga laguna baacsanayo xubnihi ka tirsan kooxda shabaab ee halkaasi weerarka ku soo qaaday sida aan ku helayno xogaha iyo macluumaadka dheeriga ah ee xilligan soo baxaya وهجاج وقدمبينتينا هدي أنو إجنو ديجانا كتير سن قبل كا bari waxa ka bilowday wajiga saddexaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxaha ka dagaalamaya dhulka buuraleyda ah ee gobolka bari wararka naga soo gaaraya halkaasi waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka Puntland ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo culus oo gobolka bari lagu howlgalayo sidoo kalena lagu baacsanayo xubnaha ka tirsan kooxda ee ka dagaalamaya halkaasi buuraleyda gobolka bari waxa ku socday maalmihii ugu dambeeyay duqeymo culus waxaana xilligan bilowday wajigii saddexaad ee lagu doonayo in markaas lagu cirib tiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka bari kuwaasi oo fariisinkooda uu yahay dhulka buuraleyda ah maamulka Puntland ayaa la tacaalaya xilligan in markaasi dhulka buuraleyda ah ay ka saaraan kooxahan oo markaasi ah kooxa argagixiso ah oo ku xididaystay deegaanada maamulka Puntland wararkan iyo wixii ku soo kordhay wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii aad channelkan ku cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe garayso sidoo kalena gambalaalka aad furato si aad u heshid macluumaadka iyo wararka dheeriga ah ee aan xilli walba halkan idin kula wadaagayno waad mahadsantihiin geedigeena 40 kun idinka ayaa ka dhiman soo dhawaada saaxiibayaal